guri aan lahayn ayaan isticmaalaa bil walba wuxuu ii sameeyaa lacaga 1200 every month oo ah 1200 bil walba gurigaagu aniga ma lihi badanaa dad badan oo Soomaali sameynaya arrintan ma arkin waxaan loo yaqaanaa wax loo yaqaan Airbnb rental arbitrage so literally this week I bilaabi doontaa license uma baahneed gurina adiga leed uma baahneed even team uma baahneed so maanta waxaan ku tusi doonaa arrintani oo step by step guide ah fadlan waxaad sameysaa na soo follow garee videogan la share garee asxaabtaada videogana save gareyso si aad ugu soo laabato so waxaan soo helay guri one bedroom ah unit waxaan kala soo helay Bloomington baan ka soo helay waxaan laga kareeyay gurigaasi 1250 laga kareeyay alaab ayaan geliyay roughly around $600 ayaan geliyay alaab ah iyo waxaan ku daray also wax loo yaqaan small log albaabka meesha laga geliyay code lagu geliyay oo $60 iga baxday so hadda gurigaasi waxa lagu kareystaa habeenkii 145 naad lagu kareystaa at least 20 days waa la kareystaa plus baa la kareystaa so lacagta soo gashay roughly waa 2900 la soo gaso iyo haddaan ka jaro lacagta rental-kan ku kareynay iyo another $400 of cleaning so roughly I think waxa iga hartaa as a profit waxa iga hartaa $1200 so guriga aniga kuma nooli literally ma nadiifiyo aniga just basically waxaan ka manage karay telefoonkayga so let me show you how you can do the same adina sameyn kartaan kutusiya number 1 step 1 first wayna soo heshaa gurigan wayna soo heshaa so find the property halka soo helaysaa first waxaad aragtaa Zillow filter garee qaybta aad rental ka tag so waxaad raadaysaa guryaha qiimahooda uu ka jaban yahay 1500 a month inuu uu ka jaban yahay raadi or waxaad raadaysaa guri at least suuqa ku daahay 60 days ku daahay mostly dadkani waa desperate sa dhacdo waxaa kale raadaysaa guriga at least inuu ku yaalo meel ah high traffic areas of for example kamid airport kale airport kale ku nool yahay meel hospital ku nool yahay meel university jaamacado kale meel ku yaalaan kale muhiim way taas step 2 waa inaad soo heshaa qofkii guriga iska lahaa numberkiisa this waxa loo yaqaan skip tracing kan waxa isticmaali kartaa website ka loo yaqaano True People Search hadii kale waxa kale waxa isticmaali kartaa website ka loo yaqaan PropStream lacag $97 a month uma baahnid website kan hadaa aado True People Search address ka soo qaadaysa guriga soo heshay waa gelinaysa then waxa helaysa dadka the owner information helaysa basically contact information you can just DM u diri kartaa like text message u diri kartaa you can call them or hadii aad rabto inaan script ku siiyo just send me script so the third steps like waxay noqonaysaa waa inaan wacdaa so wayna wacdaa ninka landlord wayna wacdaa there's a lot of different script that isticmaalaan there's one aniga isticmaala jira hadii aad rabto inaad daawan aan ku siiyo exactly aan ku siiyo just mesh hoos waxay ku soo qortaa script ama ku soo diraya let me add one more thing ku daro so as always marka ninka wacayso you have to ask permission with so ina guriga ka dhigayso short term rentals ina ka dhigaysa and also not only that ina permission with you have to get it in writing ina waxay qortayba oo ku qod like basically waxa ku darayso wax loo yaqaan Airbnb clause ina ku darto way basically hadda real estate waliga ku dhex jirin aniga muddo badan ku dhex jira so that's a problem way ku noqonaysa step 3 guriga you have to furnish and list the property keep it simple hada IKTech waxaa iibstaa alaab roughly gaarayso $500 to $600 meelahaas so iibso hadii aad rabna IK aadin oo waxaan lacag badan iska gelin you can go to Facebook marketplace tech alaab qurux badan ka helaysa oo nadiif ah oo clean literally hadaa aado waxaa kaloo soo iibsan wax loo yaqaan small lock Amazon aad tagi kartaa Amazon hada aado waxa ka soo iibsan kartaa dad aan ku sheegayo waa little box way furaha ku ridayso so the other one aan kugu dari karo just an idea way hadii aad this the first time I mean aniga this is not my first time hadii aad sameynayso the first time ay ku tahay waxa aad just Airbnb app kooda tag just like picture-rada sawirada dadka ay soo dhigayaan just to get an idea waxay sameynayaan sawirada say u yeelaan iyo design ka say u design just like all these things u sameynayaan taas waxa ku siinayna an idea ka siinaysa waxa kale sameynaysa inaad sawir fiican ka qaada loo baahan yahay so sawiro like roughly hadii aad isticmaasho website loo yaqaan HomeJab probably $140 waaye waa mid nadiif sawiradaas waa inaad save gareysta folder ku ridataa like you have to use over and over in isticmaasho every time waaye laakiin once aad sameyso hal rabaa mar walba aad clean gareyso ama wax ka update gareyso ina sawir kale ka qaado so then waxaan noqonaysaa the next step waxaan noqonaysaa you have to list this property list garayso Airbnb website waxaan noqonaysaa wax loo yaqaan host garanaysaa so then title ku qoraysaa solid title na ku dartay noqonaysaa basically gurigan how many bedrooms we how many bathrooms we yahay location ka airport intuu jiro oo hadii meesha ay jiraan like in a restaurant meelaha intuu dhow yihiin so basically waxaa la rabaa all the features details ka dadka guriga soo jiidan in meesha galsa loo baahan yahay step 4 waa in heshaa wax loo yaqaan you have to hire a cleaner kan there's many ways ku soo heli kartaa waa adiga ina guriga clean garaysa ma aha hadaa arfina clean garayso yeah you can do that lakin I don't see any market $200 in adiga guriga clean garaysa uma baahnid ana hadda kale waxaan ka soo helay dadkan kale Facebook group aan ka soo helay laakiin adiga kaado kale ina ka soo heshaa laga yaabaa you can use like website-ada kamid yihiin like task rapid or town over Airbnb kuwa loo yaqaano basically waxa ku post garaysaa just simple just waxa iska dhigi kartaa kale like looking for reliable Airbnb cleaner I will pay for like $140 to $200
but whatever by turnover simple, just keep it simple ka dhig waxaas ku qori kartaa. So once la book gareystay gurigaasi Airbnb gaasi qofkaasi notification aad cleaner ku direysay, laakiin ma qofkaasi oo ku clean gareynaya magaciisa information kiisa iyo everything system kina gelisa waa. That's why Airbnb they can just notify them. It's really super easy why. Then calendar kooda gashanayaan maalintii guriga laga baxay ogaanayaan. So dadka cleaner kana basically the reset ku sameeyaan guriga waa laga baxaya way nadiifinayaan sawirey kaaga soo qaadayaan. Is this basically mashallah wa hands off why waxa qabanaysa malaha. Ilaa qaladaha badan dadka inay sameeyaan ka hortagtaan rabo waxay tahay guriga ha kireysanin without permission oo ninka inuu guriga ah. That's basically asking for trouble. So ha sameeyaan taas meel oo slowna ka kireysan hadii kale guriga laga ma kireysanayo literally dadka oo like with no travelers dadka meesha inay safrayaan fiican. So especially the reason kilometer oo kale ku fiican tahay dadka aad u safraan way safreen way stay habeen like just 2 days 3 nights for joogayaan waa ka yaacayaan and that's fine. ku beegaranayaan adiga waa ka soconaysaa. Waxa kale gurigana lacag badan ha gelin, just don't over decorate oo lacag badan ha gelin like in oo ha sharaxin alaab sharax, just keep it simple. That's it literally intaas waay. Qof walba I truly believe qof walba inuu sameyn karo, laakiin the only difference farq inoo dhaxay aniga adiga waxay tahay adiga action kama sameynaysid and action ka sameeyay literally. And this is one of the easiest side hustles oo hadda dadka Soomaalida ay isticmaalayaan. dadka waxa ka wada cadaanka isticmaalayaan laakiin dad badan oo Soomaali isticmaalayaan arkin. Laakiin haddii rabto inaad isticmaasho haddaan ku siiyo just checklist daa u baahan tahay all these things aan ku siiyo as always checklist hoos igu soo qor insha Allah. Fadlan soo follow garee channelka waxaan rabaa boqolkiina gaarsiin insha Allah. Asxaabtaan la sheegay. Assalaamu calaykum.